duban taqaanaa maleeshiyaadkii ugu badnaa oo qaab qabiil loo soo abaabulayo oo jooga deegaanka Baliguballe kuwaas oo hadda qorsheynayo inay weeraraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan Dacwaalay oo ciidamada deegaanka Liyugu ay gacanta ku hayaan waxa taas ka sii daran saacadan waxay ku hanjabayaan in weerar argagixisanimo ay fulinayaan ayna gaari doonaan ilaa Jigjiga iyo dhagax buur waxaase doodoodii iyo dagaalkoodii iyo qababacdoodiiba biyo qabow ku shubay sidoo kalena candhuuftoodii ay dib u liqeen saacadan idan la hadlaya markii odayaashii beelaha Garxajis ee ku sugnaa Awaare ay soo saareen baaq ayna sheegeen inaysan qayb ka ahayn ku jirin dadka colaada wado ee ka soo colaadan laga soo abaabulayo meel ka baxsan deegaanka Soomaalida oo ah maamulka Isaaqlan deegaanada uu ka taliyo gaar ahaan Baliguballe markaas saacabaad maxay tahay ma taqaanay sirta ay daarood ka hayaan Garxajis waayadii shalay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar uu lahaa war dadka yaa nacayb la kala dhigdhigin waxaan socdana waxay ku asalaysan tahay ama budigeedu ay tahay nacayb isir ama reer la nicib yahay ayay tahay colaadan hadda lala soo doontay deegaanka Soomaalida waa kuwan odayaashii Garxajis oo warqado nabadda ay kaga hadlayaan soo saaray gaar ahaan odayaashii ku sugnaa Awaare magaalada Awaare dhammaantiin aad ayaan kugu mahad celinayaa sida fariimaheena aad u gaarsiisaan madaxda deegaanka Soomaalida iyo laamaha ammaankaba waana aragnaa natiijada wararkeena ee aad faafiseen waxaan idin ka codsanayaa mar kale fariintan in aad laamaha ammaanka aad gaarsiisaan waliba cadeymahan aad tustaan oo aad share garaysaan muuqaalka la garay YouTube-kana ku soo biraado mahadsantiin niman yahow deegaanka Soomaalidu waa nabad wax dhibaato ah oo ka jiraan ma jiraan waana kuwaas odayaashii reer Awaare ee Isaaq ee Garxajis ay cadeynayaan reer ayaa la rabaa in dabka lagu guro arab la yiraahdo reerahaasina dana shisheeye ayaa riixayo oo ah in fidmo iyo argagixisanimo iyo nabadiidnimo lala doonto deegaanka Soomaalida haddii dagaal aad u hamuun qabtaan oo dagaalka iyo geesinimadaas iyo feeraqaawanaantaas aad soo bandhigaysaan ay dhab idinka tahay walaaga ku biirtaan ordayada dagaalka saxda ah halkaas ka jiray deegaankii Soomaalida ee galbeedka City iyo Mooyaale ilaa iyo Jigjiga ereyadeeda ayaa qowmiyado soo socda ay rabaan inay deegaanka ay dhul badan qaataan oo Soomaaliyeed kala difaac laakiin inaad hooyo Soomaaliyeed aad gablamisaan baad u soo ordaysaan ku guuleysan maysaan waadna ku jabaysaan markaad ku baaba'aysan hadda waxa cadaaday oo banaanka u soo baxay cidda fidnada wada inay tahay reerahaas meesha ay hadda ka soo hanjabayaan ma ahan xuduudii deegaanka Soomaalida waa Baliguballe dhulka ay u hanjabayaan codadkoodii oo cadeymo ah waa kuwan waadna arki doontaane waa gudaha deegaanka Soomaalida taas macnaheedu waxa weeye xuduudkan inta gaadiid iyo tikniko iyo ciidan maleeshiyada inta ka soo gudbino baan dhul nabdoon oo deegaanka Soomaalida oo aysan dhibaato ka jirin baan khalkhal gelinaynaa amni darana ka shaqeynaa cadeyntaas waa in liyu booliska loo dhigo waa cadeyn ay isku difaaci karaan muujinaysa cidda gardarrada iyo dulmiga wada inay reerahaas yihiin waxaan leeyahay waxaan wasakhda ah oo in la soo afjaro waliba ciidanku waa inay buffer ka samaystaan dhul ka caagan aaga argagixisada Baliguballe waa gacantii ay Baliguballe ku soo galay deegaanka Soomaalida oo Jigjiga looga xukumay waa xaqiiqada dhabta waa kuwan ida arki Ilaahay idin ku dhashay Soomaalida waa isaga shalay ka dhawaajeen kooxa argagixisaha ama nabadiida ay meeshan ku jiraan dadkan masaakiinta ee shacabka waxa qoryaha iyo hubka u dhiibayo waa kooxo aan nabadda rabin u argagixisa waxaan rabaa fariintan waa midda ay tahay inaad faafisaan oo gaarsiisaan meeshan argagixisa ku jirto meeshan aadan sunni baa ku jiro oo fidnada aan wado oo shabaab ah baa ku jiro waa intaas la ogaado waayo dadkii deegaanka u badna ee nimankan hadda arab deegaanka uga majority sana waa odayaashaas Garxajis ee hadda nabadda ku dhawaaqay ee ku sugan Awaare fidnada ma rabaan shuruucdii deegaankeenu u hoggaansanayeen laakiin reerahan raba inay dabar go'aan ee arab waxa sutida u hayo ee gadaal ka taagan oo ay taladu ka go'daa waa aadan sunni waxa loola macaamili karaan waa in xabad iyo xasuuq loo geysto waa in xabad afka laga geliyo waa in dagaal culus oo lagu riiqmay u dhaco markay
ciidanka deegaanka fariinta aan rabin inaad garisaan waa xogtan waa qaabkan ay howlgalka u rabaan ilaa 2,000 oo nin baa la diyaariyey maryaha zamanada ee garabka laga riday wataan qaybtood waxay wataan qaraxyo ayay wataan kuwa kalena waxay wataan sida la sheegay miinooyinka dhulka la geliyo ayay wataan raggaas hormo iyagoo u socdo ayay doonayaan ay weeraraan fariisimaha ciidamada liyugu ay ku leeyihiin saldhigyadaas waxay rabaan weerar cagmarin ah inay qaadaan haddaba allahumma ballaqtu hal laga digtoonaado waliba argagixisadu intaysan weerarka ugu soo qaarin waa inaad ugu tagtid deegaanka ay ku sugan yihiin meelaha ay saldhigyada ka samaysteen waa in loogu tago oo lagu burburiyo waayo waxay ku cibri qaadan waayeen wixii maalintii dhawiitu dhacay iyo fidnadii deegaanka lala soo doontay halkii ku dambeysay ilaa xilligeena waxay leeyihiin waa istijaabinayna mar kale weli ma nanquusano waxaanu rabnaa inay nabadgeliyo xumo ka dhacdo deegaanka Soomaalida haddaba fariintaasi laamaha ammaanka waa inaad gaarsiisaan